warkalamaanay maalmahan bas Soomaaliland way silloon tahay baashii siyaasada ahayd loo saldhigi waa saraakiisha taladii qabsaday seega marinkii siiriya sawaxan bas qabsaday buuq siraadsaday samatalis waraabay tabtiye saahidkii madare allow sahal amuuraha adaa saamaxaad badane wargaboosow siyaasiyiinta Soomaaliland oo isyara seegan haddii loogu simo qaladkii jira way iska saxayaane buuqiya sawaxan yaa marnaba loogu sii darin warbanaan baxayaashii Soomaaliland Muuse oo soo baxay dhahayeen horena samigii Muuse soo waa kii yiri soo bax ku soo bixi ma war madaxweyne Muuse bixi laftirkiisu wuxuu yiri gudoomiye cirra Sri Lanka filin ka daawaday wuxuuna u qaatay in madaxda qaylo lagu eryi karo oo si fudud madaxweyne lagu noqon karo laakiin Soomaaliland waxa kaliya madaxweyne looga noqon karaa waa doorasho iyo nabad doorashooyinka gurto aan rifawku isku jeeday waliya madeeyo u malayn maayo in Muuse ku fahmay war gudoomiyaha xisbiga Ucid Faysal Cali Waraabe wuxuu yiri madaxweyne Muuse bixi hadii la yiraahdo shahaado inuu xirsi dhahan ka baqayaa buu yiri warnimayo anu Soomaaliland waxaan dhihi lahaa 30 sano ayay nabadeed iyo ka sii saa'id sahliyay faraha uga bixinaysa ma loo dooro war madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo sidii odan nabadoon u la hadlay Soomaaliland waxa uu yiri walaalayaal nabad iyo maamul iyo kala dambeynad haysatiin cidii weydaana taqaan qiimaha ay leedahay Soomaalidu inay wax qabsan kartana adinka tusaale leedin soo qaada jiro waa ku faani jirnay marka waxaan ka codsanayaa oo yiri hogaanka dawladda hogaanka mucaaradka hogaanka dhaqanka hogaanka culimadiinka hogaanka bulshada rayidka iyo dhammaan waxgaradka Soomaaliland inay wada hadlaan arrimahoodana hoos u xallistaan oo aysan u baahan in ajnabi soo farageliyo iyo xataa Soomaali kale war madaxweyne Xasan Sheekh aanadaatay dabadooda baa la qabtaa ka daray ariya balaaya gafuur la qabtay leedahay daba la qabta ma laha uu yiri war madaxweyne Xasan Sheekh waa kii yiri Soomaaliya heshiis dunidan heshiis la ah Soomaaliland wuxuu heshiisii way markuu idinku heshiiye leeyahay war Faysal Cali Waraabe wuxuu yiri dawladda Soomaaliland muxuu noo dhihi way Xasan Sheekh markuu leeyahay maamulka Soomaaliland war Faysal Cali Waraabe xubno aqoonsi way madaxweynuhu miyuu leeyahay war ma mudaharaadkii aqoonsi u raadinaya war dhaqamadii Muqdisho lagu yaqaanay maanta Hargeysa ku daydaynaysa hadaan idin sheego waxa kamid ah madaxweynuhu muddo kororsi buu rabaa Muuse soo bax ku soo bixi maayo banaanbaxa badbaadada qaranka Soomaaliland waa wadaynaa banaanbaxyadu amni darray keenayaan lamana aqbali karo banaanbaxayaashu waa qaran dumis jidkii madaxtooyada hormarayo la xidhay nin wajiga soo duubtay oo ninna dhaawacay midna dilay dhagaxtuur iyo taayirro wadooyinka lagu gubo rasaas buuq iyo sawaxan iyo siiri inta Muqdisho waa ku arkayay haddana waa taa Hargeysa aad arkaysaan war anigu waxaan dhihi lahaa anoon dhinac la jirin oo dhismiyo dhalasho eegaya dhalinyarada Soomaaliland qowlan aan dhahoe annaga dib soo aragnay iyo dhaqan la tuuraaye labiyaasha qaarna waxay galaan dhama cadaabeede intaan bala ka dhicin on arrada dhig ku wada daadan dhallaankiyo inta aan la duban dhaxalka ciidiina lidir iyo dhurwaa iyo intaan bahala soo dhuuman dhaqsadoo badbaadada dhulka iyo danaha guud dhowra no warada dhalinyarada Soomaaliland kama talisee madoodayaasha talada haya la hadashay aga war oday aan dhalinyaro garab taagnayn wax dhibaato ah ma geysan karo dhalinyaro oday aan garab taagnaynana wal ma hadlaayo Quraan warnimo dhalaan hooyadii wixii dhibaa waa ka dhiriftaaye hadii ruuxda la isdhaafso karo kama dhibiisheene iska dhumina waxaad haysatiin dhowrta sharaftiina war ma haysan culimada Soomaaliland intooda badan shalay khudbadii jimcaha waxay ku soo qaateen qalalaasihii iyo banaanbaxyadii Khamiistii dhacay Sheekh Mustafa Haaruun oo si xeel dheer dadka ula hadlayna wuxuu yiri ka banaanbaxaya iyo ka rasaasta ku ridayaana midkoodna kursiga fuuli maayo askariguna qofkii uu dilo dambigiisa asaga qaadaya cidii soo dirtina dambigeeda ay leedahay sidaa darteed askartu waa inay dadka xabadda ka daayaan shacabkuna goobta lagu dilaayo aanay tagin war Soomaalidu waxay isku sheegtay oo la isku dilayaa waa siyaasada la leeyahay siyaasadda maxaa loogu dirayaa ma lagu heshiiyo war siyaasadda hortaada may hayti xalaya saqdi dhaxay siyaasadu ikiciso isu'aashay nimayaho waxay tiri Soomaalida kala saari waayay horta ka siyaasiya saqiir iyo kabiir bay isaadaaliyaan oo baaraan salkayge ma ogtahay Soomaalidu saxadaysan iyo baran sahal maahi anigu seef iyo sakiin iyo sun inaan ka daranahay qoonkan sumaysani suuq miyay imoodaan sonkor iyo bur lagu gado maxay igu siriraan aryaadaha siyaasaddu dadka oo dhan ay waashay wasiirka hore ee maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle mugo wadanka ka baxaya dayuuradana raacaya heesow Facebook
facebookiisa soo saaray madaxda xilka ka qaaday inuu ku sagootihayayna u ekeed aasou yidhi siyaasaddu ma beenba wartaas abwaansan gubaa hore u yidhi makoobiya war cabdidhuuxba hore uu sheegaye bayle ma wax kaluu waaye siyaasad muunfa maaha malaay dabowna maaha yeeray aryadhaha warka ha ku soo boodinee siyaasadu ma beenba buunbuunin sheekiyo burcad iyo matuuga afka oo la buuriyo bayr leesu yeeliyo miiska boola xoofta waxaan igu bannaanayn iyo mase waa barkumataal intaas mugow yidhi waxa uu ku sii diray alla ilahe balaayoy bismillaahi yaahu buulkaygana kaa galay war cabdulow doctor bayle booramana mugaan tago wax intaas ka badan baan durba soo bandhigayaa ma ku daray war anugu waxaan la yaabanahay siyaasaddu ma beenba burcad iyo matuuga meeska boolo xoofta yaa u weydiinayaa maanta bayle war bayle asagoo wasiirka arrimaha dabadda ah xilligii hore ee dowladda xasan sheekh markii xilka laga qaaday wuxuu yidhi adaa moogow hurdee soomaaliya waa mashruuc marka haddana markii xilka laga qaaday miyuu keenay bismillaahi yaahu war lankiiba boos waaye madius bahownagada bilaayo hortaba kufa jari waryaaya heesta wasiirka waa ku badateene dharaartii layskodbado rag waa kii aar gutee haddii labadeenna gole la diiday inuu mid galo go'aanka raggii lahaa inuu gabayada ku duro u diro heesaha gafkaa miyaanu gar u lahayn war bayle hadduu 5 sano maaliyadda dalka maamulayay miyaysan ku fillayn xaa ka maqan war beesaa laga dhargaayaa ku yidhi beeni maxay tari booramaanka imiya ma yidhi aryadhaha allah u naxariistay meecaad miigana hadda ka hor wuxuu yidhi ummad yahay ibiradu dadka way uga dartaa walle way uga dartaa kadibna waxuu ku sii diray waydnaan daareemine dadka kii dhergow daran ilaaliyo dib u socodna waysaga war cabdillow waxaad ka tagtay durduro geel baa ku jabaye damaacina waa xun yahaye dalkuna waa lama huraan dadkuna waa lama huraan war kalamaanay adiguma guddigii xisaabi xil ma laha baad ka harteen ilaan qofku hadduu xilka wareejiyo bulshaduu ka mid yaho shaqa damboo lagu eedeeya ma haye waraankoolow mas-uul xoolo qaranhaya haddii uu xilkii waayo oon lala xisaabtamin xukun meesha kama jiro ninkastoo xil loo dhiibay waa in lala xisaabtamo aryadhaha samigay cabdullana waxau yidhi how sinaan iyo kala sarrayn midda saxda ma suubina sinaan iyo kala sarrayn midda saxda ma suubina war cabdullow samigaa ma siyaasiya waaba iga yaabsha anige war kalamaanay war ma haysiine wasiirka diinta iyo awqaafta sheekh mukhtaar roobo cali abuu mansuur fadwooday mawlidka alla xusameeyuu yidhi war hadda waa wasiire abuu mansuurka ka reeb war abu camaaroo dalka dhan hogaaminayay ayaa soo xiray war wasiirku wuxuu mahad celiyey markuu xafladda ka hadlaayey ergeygii hore qaramada midoobey dalka laga caydhiyey nicholas haytham wuxuuna yidhi cid kastoo dulmiga ka diirta in loo mahad celiyey mudan tahay war wasiirrooba wuxuu la kulmay wiil 4 sanoo uu xiraa aan intiisa jarin shardina ku galay ilaa la soo daayo shiikha inuu saxiirayn wiilkaasoo timihiisu gaareen dhabarka sidii gabdhihii war mukhtaar robow war kama haysida wuxuu yidhi waxaanu mahad celinayaa madaxweyne xasan sheekh oo anoo xiran asna uusan xil haynin sheegay in afduub la igu haysto markuu xilkii qabtayna i soo daayey xukuumaddiisana igu soo daray war waa waalantii laydinmana warrami karo baabkaasna aniguma socone sheekh mukhtaar markuu xafladda ka hadlaayay nimaa wuxuu yidhi waxaan kaa codsanayaa sanadka soo socda fiisahan xajka ku tago wuxuu nagu jawaabay wasaaradda in yaraan joogaa intay qaadan doontana ma hubo marka haddaad igu soo gaarto waa ku dadaalayaa waxaan la yaabanahay wasiirku xil sahalkaas loogama tagay ma xilka weyn u arkaday war markaad leedihiin wasiirku ma ka tegi rabaa wasaaradda markii la soo xirayey madaxweynuhu inuu tartamayo miyaadnaan ogeyn war koonfur galbeed war kama haysiine lafta garan maanta wuxuu la shiray dhammaan hay-adaha amniga koonfur galbeed oo ay ku jiraan taliska amisom ee baydhabo wuxuuna yidhi waa in la adkeeya ammaanka dhaqdhaqaaq kastana waa in lala socdaa uu yidhi wuxuuna u muuqday siyaasiyiinta ka soo horjeeda inuu dhufays ka qodanayo hayay dooliga yaleeray war siyaasiyiinta koonfur galbeed ka soo jeeda ayaantan shiriray wadaane ma kursiga lafta garan ay u
socdaan horta kursiga ma lafta gareen baa le mise koonfur galbeed baa leh wargo'yin war ma haysaane madaxweyne lafta gareen ilaa adhisababuu tegey dowladduna waxay garowsatay nin lala shaqayn kara inuu yahay kursigana waa lagu ilaalinahayaa war horanow madaxweyne cagjaraa muqallas ka ahaa miyaad leedahay war ma baraadarkiyaa ballan qaaday inuu bay xiji doono war hankoolow lafta gareen i roobow i aawow shariif iyo jawaari maykii diri may galmudug a hilmaantay war galmudug sanad guuradeedaa soo dhowo waxay dhihi rabaan madaxaana furan war qoorqoor aabbo wii ka tegey maantoo kalena madaxaana furan ma dhihi karaa war waxaa la yidhi ilmo gareenya waa yaaban yihiin xulafadoodiiye uurjiif haddii hooyadiis gawrac lagu jiido asna wuxuu u sii joogayaa wayla ama kaage ha iska bila dhammaystana dad baa dhahaya yeelkoodi war hankoolo war mahayside guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish waxa uu yidhi intaan joogaan wixii qaldan sheegayaa laakiin markii xilka layga qaado sidii doqoneed wax sheegi maayo warna miya ogoonto hobisan walanka taraana madaganaad mansilaatana war ma haysiina guddoomiyaha gobolka cumar finish wuxuu yidhi buundooyinka waa beri iyo xamar jajab gaari xamuulu ima mari karo kii soo maroo amarkeenna ka dhega adaygana waa la wareegaynaa nala kugumana imaan karo sharcigii hanti wadaagga miyaa la soo celiyey war buundooyinku dhismay u baahan yihiin gaadiid culusna ma celi karaan war ma haysaana golaha wakiilada somalilan waxay sheegeen inay baadhayaan khamiistii khasaarihii dhacay waxayna xil saareen arrintaa guddiga joogtada ah war golaha shacabka soomaaliya xildhibaanadii lagu eedeeyey inay fawdo sameeyeen maalintii xukuumadda la ansixinayey ee la yidhi ha la soo baadho waa la cafiyey ayaguna raalligelin bay ka bixiyeen war guddoomiye aadan madoobe oda dul qaadanayaan ahamiyuu yidhi war soomaaliya maanta xilkas iyo xaal mastuur kama maaranto war ma haysiina doorashadii kenya marba midaa ku horreeyaa la leeyahay musuq iyo waxbaa jirana waa la isku eedeeyey dadka siyaasadda u dhunduleelaana waxay sheegayaan ninka ku horreeya haddii la sheegay in fawda dhacda in laga baqayo wajeerna waxaa la yidhi guddiga doorashada xaruntii ay ku shaqaynayeen waa laga rarayo amni xumaa looga baqay warraga warmaysin waxa loo joogana waa ku rafatiine canfartiyaa soomaalidii eber ka dhigtaa la yidhi 3 tuulana dadkii ku noolaa hal xabba kama reebinaa la yidhi intii lugahooda ku fakata bisa ka badbaadaa la leeyahay ciidankii dowlad deegaanka soomaalidana shabaab ay ku mashquulsan yihiin oo gadaalba ma fiirinaa la yidhi wargo'yin soomaali meelay joogtaba cadow waa u diyaar garoobay inay isdifaacdana ma garato war guddoomiyihii gobolka hiiraan cali jayte dagaalada furimuhu galaa mar kaste maamulada kale may ku daysadaan waa xoraynaynaa nooh mau yidhi war ciidamada amisom waxay u joogaan ma yaqaaniin noohow yidhi nooh war jabuuti oo gacalkeena haydoon hil walaal ula baxanay xataa dagaalkana lama gashuu yidhi nooh warka boosow noo xaggeed ku barata nooh soo nin somalilandana ma aadan ahayn nooh war kale maanay warkiinnu waa lagu batee naga daaya nooh agaa war meeshu nooh badana nooh war adiiba agahda noo dhaaf nooh war xanta naga yareeya nooh yahuudaada madeeyow nooh sidii baylami aduuna bismillaahi yahuud bilowda nooh nagu kala wada nooh war noohnooda iyo nacasnimada naga dhaafa nooh